bismillaahi raxmaani raxiim habeen wanaagsan daawadayaal qodobada wararka TV caawidinahay waxa kamida qarax qasaare geystay oo ka dhacay Muqdisho dawladda Soomaaliya oo war ka soo saartay culayska siyaasadeed oo Kenya ay saartay Soomaaliya wargeys ka soo baxa Kenya oo shaaciyay talaabooyinka Kenya ay ka damacsan tahay culayska siyaasadeed oo ay saartay Soomaaliya Axmed Madoobe oo ku guuleystay soo xulista xildhibaanada Jubbaland maxkamad ku taala Mareykanka oo dambi ku heshay sarkaal sare oo ka tirsan dawladda Siyaad Barre iyo dawladda Ingiriiska oo muwaadiniinteeda uga digtay dalka Kenya wararka dibadda wararka TV caawidin hayna waxa kamida reer galbeedka oo digniin u diray Suudaan iyo ra'iisul wasaaraha Ingiriiska oo carag kala kulantay heshiiska cusub ee ka bixitaanka midowga Yurub daawadayaal ku soo dhawaada warkaasi oo fidsan haddii aad ka mid tahay daawadayaasha cusub ee barta YouTube-ka ee wararka TV fadlan rukuma barteena oo subscribe dheh qarax ismiidaamin oo loo adeegsaday baabuur waxyaabaha qarxa ka buuxa ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya ugu yaraan 5 ruux ayaa ku geeriyootay halka ku dhawaad 10 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii baabuur laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa oo ku qarxay bar control oo ciidanka nabad sugidda ay ku leeyihiin agagaarka daljirka Dahsoon ee magaalada Muqdisho xilliga qaraxa uu dhacay ayaa la sheegay in gaadiid kala duwan ay taagnaayeen kontaroolka ciidanka halkaas oo lagu baarayay waxaana qaraxa qasaare dhimasho dhaawac uu gaarsiiyay ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka saraakiil dawladda Soomaaliya ka tirsan iyo dad shacab ah oo ku sugnaa goobta qaraxa ayaa waxa ku dhintay sarkaalad ciidan oo lagu magacaabi jiray Cornel Fay Cali Raage oo kamid ahayd saraakiisha ciidanka xoogga dalka sidoo kale saygeeda iyo ilaalo la socotay ayaa kamid ahaa dadkii ku dhintay qaraxaasi ismiidaamin ee ka dhacay magaalada Muqdisho dhinaca kale laba xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa dhaawacyo fudud ay soo gaareen waxaana qaraxa maanta uu ku soo aaday xilli ammaanka caasimadda ay si aad ah u adkeeyeen ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya isla markaana heegan buuxa la geliyay ciidamada ammaanka si looga hortago qaraxyada ururka Al-Shabaab ay ka fuliyaan magaalada Muqdisho Al-Shabaab ayaa inta lagu guda jira bilaha barakeysan ee Ramadaan waxay kordhiyaan weerarada ay ka fuliyaan magaalada Muqdisho laakiin Ramadaankan ciidanka ayaa si weyn u adkeeyay ammaanka inkastoo wali Muqdisho ay ka dhacayaan dilalka iyo qaraxyada ururka Al-Shabaab ay ka fuliyaan magaalada dawladda Soomaaliya ayaa war saxaafadeed ka soo saartay markii ugu horeysay culayska siyaasadeed oo dawladda Kenya ay saartay dawladda Soomaaliya wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee dawladda Soomaaliya ayaa war saxaafadeed ay kaga hadlaysa culayska siyaasadeed oo ay Kenya saartay Soomaaliya soo saartay waxaana war saxaafadeedka ku qornaa luqadda Ingiriiska lagu yiri iyadoo aan qadarinayno wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya waxaan aad uga walaacsanahay go'aanka dhawaan ay qaadatay dawladda Kenya ee lagu xanibay dalku galka xubnaha xukuumadda iyo baarlamaanka Soomaaliya dawladda Soomaaliya waxay si gaar ah uga walaacsan tahay in xubno ka tirsan dawladda Soomaaliya oo dhawaan u safray magaalada Nairobi kuwa oo ay ku jireen wasiirro iyo xildhibaano ay xanibaad ku sameeyeen saraakiil ka tirsan hay'adda socdaalka Kenya baasaboorradii ayaa laga qaaday kadibna dib ayaa lagu soo celiyay magaalada Muqdisho ayaa lagu yiri warkaasi qoraalka ay ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya sidoo kale dawladda Soomaaliya waxa ay muujisay walaac ay ka qabto in dib loo soo celiyay baaritaankii dheeriga ahaa ee lagu sameeyay Soomaalida safarka ku aada magaalada Nairobi iyadoo qasab looga dhigay in magaalada Wajeer ay ku hakadaan si baaritaan amni loogu sameeyo arrintaasi waa mid ka hor imaanaysa heshiiskii ay labada dawladood hore u galeen ee ku saabsanaa in duulimaadyada Muqdisho iyo Nairobi ay ahaadaan kuwa toos ah talaabooyinkaasi waxay carqalad ku yihiin xiriirka walaaltinimo ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya ayaa lagu yiri war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya sida daraaddeed dawladda Soomaaliya waxay ugu baaqaysaa dawladda Kenya inay xiriiriso carqaladaha ay keeni karaan talaabooyinkaasi oo ilaaliso xiriirka soo jireenka ah ee u dhaxeeya labada dal isla markaana tixgeliso dabciga diblomaasiyadeed iyo ixtiraamka labada wadan ay kala mudan yihiin dawladda Soomaaliya waxaa dhankeeda ka go'an inay ilaaliso xiriirka saaxiibtinimo oo ay la leedahay dawladda Kenya waxayna sii wadi doontaa soo dhaweynta muwaadiniinta iyo saraakiisha dawladda Kenya ee Soomaaliya imaanaya wargeyska The Nation oo fadhigiisu uu yahay dalka Kenya ayaa shaaca ka qaaday talaabooyin ka dhan ah dawladda Soomaaliya oo ay qorshaysay dawladda Kenya inay ku sii xoojiso culayska siyaasadeed oo ay saartay Soomaaliya wargeyska The Nation ee ka soo baxa Nairobi ayaa qoray in dawladda Kenya ay awoodeeda diblomaasiyad u adeegsanayso Soomaaliya oo ay ku eedeysay inay ku xadgudubtay biyaheeda wargeyska The Nation ayaa qoray dhowr tallaabo oo ay qorshaysay dawladda Kenya
in ay qaado si ay cadaadis xoogan u saarto xukuumadda Muqdisho waxaana qodobadaasi qayb ka ah kow joojinta mudnaanta gaarka ah ay siin jirtay mas'uuliyiinta dawladda sida fiisaha loogu dhufan jiray baasaboorkooda marka ay ka soo degaan garoonka diyaaradaha Jomo Kenyatta. labo bilaabista tallaabooyin iyo xanibaad adag oo la saarayo diyaaradaha ka imaanaya Soomaaliya sida in ay soo maraan magaalada Wajeer. saddex la macaamilka iyo soo dhaweynta dawladaha federaalka ah ee khilaafka uu kala dhaxeeyo dawladda Soomaaliya iyo sidoo kale maamulka Somaliland. afar ka soo saarista ciidamada Kenya ee jooga Soomaaliya goobaha ay hore uga qabsadeen kooxda Al-Shabaab si shabaabku ay dib ula wareegaan taasoo cadaadiska gudaha ku sii kordhinaysa dawladda Soomaaliya. shan hakinta qaar ka mid ah heshiisyada labada dawladood oo ay hore u kala saxiixdeen inkastoo aan la shaacin waxa ay yihiin heshiisyadaasi. wargeyska ayaa sidoo kale qoray inay jiri karaan tallaabooyin kale oo intan ka baxsan oo dawladda Kenya ay qaado si cadaadiska ay ugu sii kordhiso dawladda Soomaaliya. wargeyska ayaa shaaca ka qaaday in ujeedada Kenya ay tahay in ay ku qasabto Soomaaliya inay ka laabato dacwadda taalla maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ee ku saabsan muranka badda ee u dhaxeeya labada dawladood isla markaana taa beddelkeeda wada hadal laga furo arrinta badda. Kenya ayaa habeenkii Isniinta waxay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya oo u socda shir ka dhici lahaa Nairobi ku qasabtay in qaarkood ay baryaan garoonka diyaaradaha kadib markii ay u diiday fiisihii dalku galka. hogaamiyaha maamulka Jubbaland Sheekh Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa ku guuleystay soo xulidda xildhibaanada ka mid noqonaya baarlamaanka Jubbaland oo maalmihii u dambeeyay buuq badan uu ka taagnaa. magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose waxaa ka dhacay kulan ay yeesheen guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo doorashooyinka Jubbaland iyo odayaasha dhaqanka waxaana kulankooda ay uga hadleen habka loo marayo soo xulista baarlamaanka cusub ee Jubbaland. guddiga madaxa bannaan iyo xuduudaha doorashooyinka Jubbaland ayaa waxa ay ku dhawaaqeen in dhammaan degmooyinka uu ka kooban yahay dawlad goboleedka Jubbaland odayaasha dhaqanka ku nool la keeni doono magaalada Kismaayo si loo siiyo tababar ku aadan xalinta khilaafaadka. sidoo kale guddiga ayaa waxa ay sheegeen in odayaal dhaqameed walba laga doonayo in uu keeno 3 qof oo beeshiisa kadibna laga soo xusho midkii uu noqon lahaa xildhibaanada baarlamaanka dawlad goboleedka Jubbaland. habka loo marayo soo xulista xildhibaanada baarlamaanka cusub ee Jubbaland oo ka duwan sidii hore ayaa waxa ka soo horjeeda musharaxiinta madaxweynaha Jubbaland iyagoo sheegay in habkaasi uu yahay mid madaxweyne Axmed Madoobe uu ku doonayo in uu ku soo baxo xildhibaano taageersan si uu u helo codka xildhibaanada hadda la doorta. maxkamad ku taala dalka Mareykanka ayaa dambi ku heshay sarkaal sare oo ka tirsanaa dawladdii kacaanka ee Soomaaliya oo ku nool waddanka Mareykanka. sarkaal hore uga tirsanaa ciidankii militariga xukuumaddii Maxamed Siyaad Barre oo maalmahan maxkamadiisu ay ka socotay gobolka Virginia ee dalka Mareykanka ayaa xeerbeerti qaadayaasha dacwadiisa ay ku heleen mid ka mid ah 2 eedoomed oo loo haystay. Cornel Yusuf Abdi Cali oo loo yaqaan Tuke ayaa lagu helay eed ahayd inuu mas'uul ka ahaa jirdil 31 sanadood ka hor loo geystay Farxaan Maxamuud Taani Warfaa waxayna maxkamaddu ku xukuntay in uu bixiyo lacag gaarayso $500,000 oo magdhow ah. Cali Tuke ayaa ka mid ahaa madaxdii ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya wuxuuna taageersanaa kaligii taliye Maxamed Siyaad Barre sida lagu sheegay xogta maxkamadda. bishan wixii ka horeeyay Cali Tuke wuxuu wadi jiray taxi tiknoolajiyada la jaan qaaday ee Uber isagoo dad badan ay jeclaysteen adeegiisa intii hawshaasi uu hayay. Farxaan ayaa sheegay in ciidamada Yusuf ay gurigiisa oo waqooyiga Soomaaliya ku yaala ay ka afduubteen sanadkii 1987. bilihii ka dambeeyay afduubkiisa Farxaan waxa uu sheegay in su'aalo la weydiin jiray isla markaana la garaaci jiray wuxuuna intaasi uu ku daray in rasaas lagu dhuftay iyadoo awaamirta uu bixiyay Cornel Tuke oo xukumayay guuto ka tirsan ciidankii ku sugnaa waqooyiga Soomaaliya. waxaa Farxaan uu sheegay in meyd ahaan looga tagay kadibna cidiisa lacag madax furasho ah meydkiisa looga qaatay. dawladda Ingiriiska ayaa muwaadiniinteeda uga digtay inay u safraan dalka Kenya. dawladda UK ayaa soo saartay digniin cusub ee dhinaca ammaanka oo ku saabsan muwaadiniinteeda inay u safraan magaalooyin ay ka mid yihiin Nairobi iyo Mombasa kadib khataro amni oo UK ay sheegtay inay ka imaanayaan ururka Al-Shabaab. digniintan ayaa xafiiska arrimaha dibadda ee UK ku sheegay inay ka dhalatay markii ay kordheen weerarada u badan afduubka ee ka dhaca gudaha dalka Kenya.
bishii November ee sanadkii hore waxaa Kenya laga afduubtay haweeney u dhalatay dalka Talyaaniga 12kii bishii Abriil ee sanadkan waxaa Mandera laga afduubtay laba dhakhtar oo u dhashay dalka Cuba. dowladda Kenya ayaa sheegtay in labada afduub ay ka dambeeyeen ururka Al-Shabaab waxaana howlgal dadkaasi lagu raadinayo ee ciidamada Kenya ka wadaan gudaha Soomaaliya iyo kaynta Boni. dowladda UK ayaa warbixinteeda dhinaca ammaanka ku sheegtay in magaalooyinka kale ah Nairobi, Mombasa, Malinda, Naroka iyo magaalooyin kale oo ay ka mid tahay magaalada Meru ay ka jiraan khatar dhinaca ammaanka ah oo sababi karta in wax lagu yeeleeyo muwaadiniinta u dhashay waddanka Ingiriiska. dowladda Ingiriiska ayaa uga digtay muwaadiniinteeda inay ku dhex safraan gudaha Kenya halka oo ka dhici karaan weerar argagixiso oo ay fuliyaan ururka Al-Shabaab. wararka dibadda wararka TV caawa idin hayana waxaa ka mid ah ra'iisul wasaaraha dalka Ingiriiska Theresa May ayaa carag kala kulantay heshiiska cusub ee ka bixitaanka midowga Yurub. ra'iisul wasaaraha UK Theresa May ayaa heshiis cusub oo ku saabsan ka bixitaanka Britain ee midowga Yurub waxa ay geynaysaa baarlamaanka dalka Ingiriiska xilli ay jiraan calaamado muujinaya in xisbigeeda uu mucaarad ku yahay hogaaminteeda. ra'iisul wasaaruhu wuxuu khudbad u jeedin doonaa baarlamaanka waxayna ka hadli doontaa isbeddel ay ku samaysay heshiiska looga baxayo midowga Yurub. laakiin xildhibaanada xisbiga shaqaalaha ayaa aaminsan in wax yar laga beddelay heshiiska loo keeni doono baarlamaanka. tiro dhowr jeer ah ayaa Marwe May laga diiday heshiisyo ay ugu talagashay in midowga Yurub uu uga baxo dalkeeda. wadamada reer galbeedka ayaa digniin u diray dalka Suudaan oo wali ay ka socdaan rabshado u dhaxeeya ciidamada militariga iyo dad kacdoonka wada dalkaasi. guddiga militariga ee maamula Suudaan ayaa cadaadiska ku sii badanaya si ay dib u bilaabaan wada hadallada ay kula jireen hogaamiyaasha dibadbaxyaasha kadib markii uu hakad galay galinkii hore ee Talaadada. Mareykanka, Ingiriiska iyo Norway ayaa ka digay in haddii xukuumad aan rayid ahayn ay talada qabato ay arrintaasi carqaladayn karto calaaqaadka ay Suudaan la leedahay dowladaha reer galbeedka. hogaamiyaasha dibadbaxyaasha ayaa sidoo kale taageerayaashooda ku booriyay inay isu diyaariyaan dibadbaxyo hor leh iyo shaqo joojin balse weli waqti uma aysan qaban dibadbaxyadaasi iyo shaqo joojintaasi ay ku baaqeen. guud ahaan daawadayaal warkii aad kala socoteen wararka TV caawa waa naga inta.